السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kastoo dunida daafiyada aad ka joogtaan maanta waxaan u boqolinaa cagaayo gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco inagoo eegayna kalimadka ama ximilada ay ku sugan yihiin isdhex taagayna qaadana jawiga degan ay ku sugan yihiin dhex joognaa ka dhicin gaariga baa ku leeyahay okay haddaan maanta ka istul taagno shakhsiyada ugu caacsan gobolka Togdheer haddii noqoto baraha bulshada iyo haddii noqoto meelo kaleba inagoo halkan inaan ku soo koobi karana ma aan midyo laba iyo saddex aanan halkan ka soo qaadan kareen laakiin midmid ayaan u soo qaadanayna maanta waxaan bilaabanaa qofkii ugu horeeya waxa weeye ninka ku taqaanaan gaarka waa Cabdiraxmaan gaarka waa ninka baraha bulshada ugu caansan wuxuu ku nool yahay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco magaciisa saddexani waxa weeye Cabdiraxmaan Caawad Cali oo loo yaqaan Cabdiraxmaan gaarka wuxuu heerkiisa waxbarasho kala duwan oo ku soo qaatay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco isagoo waayihiisii waxbarasho ilaa dugsiga hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed uu halka gobolka Togdheer ku soo qaatay isagoo oo inkana kamid ah dadka ugu caansan gobolka Togdheer haddii noqoto dhinaca jaleynka haddii noqoto dhinaca magaranaysa wacyigelinta haddii noqoto dhinac kastaba oo laga istaago runtii waa shakhsi aan inaba aan caadi ahayn ayaan halkaan ku soo koobaynaa runtii haddaan sii guda galno iminka wuxuu ka mid yahay shakhsiyada ka howlgala gobolka Togdheer xagga short filmiska riwaayadaha iyo waxyaabo kale oo badan oo uu soo gudbiyo ama uu soo bandhigo dadkiisa jecel ee taageeraha badan iyo xiisada u haya meel kastoo dunida daafiyada ka joogana ay ku kala nool kuwaasoo aan maanta oranayno annaguna idinka farxinayna waayo qofka taageeraysanaya historigiisa oo yar kooban idiin soo gudbinayna inagoo maalmaha ka mid ah garabkeena soo fadhiisin doona su'aal ilaalaya su'aasha jeceshiina weydiin doona laakiin maanta annaga ayaa taageerayaasha ugu xidhan ayaa runtii jeclaaday inay yiraahdaan noo soo qaba Cabdiraxmaan gaarka ninka la yiraahdo ee gobolka Togdheer jooga maantana idiin soo qabtay okay taariikhdiisina waa kan isagoo iyadoo kooban ama iyadoo caynkana ama iyadoo isku duuduuban ama iyadoo jumlada okay dan halka ka nimaadno runtii positionada uu ka ciyaaro marka filmaantu uu matalayo ama riwaayadaha markuu matalayo dhinac kasta waa position loo dhiibo haddii noqoto actore haddii noqoto magaranaysa boss haddii noqoto magaranaysa boss caawiye ninka loo yaqaan ee dhinaca ka nacableeya ama nacableeya ninka u taqaanaan dhaarka dhinac kastaba uu ka ciyaaraa isagoo mar xitaa ku matalaya dhinaca waalidka filmaantiisa hortiina ka muuqdaana waa filmaantu matalay haddii dhinaca wacyiga noqoto waa dhinacii heestii ugu dambeeyay ama baraburka uu qaaday dhinaca kufsiga waa taa heestii ku jirta filmaantiisii mar waalid weeye mar waa tore mar waa caawiye marba waa dhinac laakiin position kasta oo loo dhigo wuxuu ka ciyaaraa heer muhiima ama door muhiima ayuu ka qaataa isagoo runtii aynaan orananin kasii soco halkaa kii gowan baan ku leenahay Cabdiraxmaan laakiin maalmaha ka mid ah garabkayga ayaad soo fadhiisanaysaa su'aal kastoo aan ku weydiinina waad ka jawaabaysaa runtii waxaa tahay shakhsi mudan inaan la xuso markiisa iyo maalintiisa waxaa tahay shakhsi aanan halkan wuxuu qabto ama wuxuu gudo runtii inaan halkan ku soo koobi karayn laakiin waa muhiim innaga waa inoo muhiim haweenka adduunka kabay haliyada ka dhalay hooyada dabar jaro hidii iyo waa hooyada haliyey ka soo dhigteed maxaa